cabdisalaan hereri iyo tiimkiisa caawa waxaan idinku soo dhaweynayaa anigoo ah sareeye guuto ibraahim cabdi xaaji maxamuud hoggaanka howlgelinta ciidanka booliiska waxaan idinku soo dhaweynayaa qaybta bariga hargeysa ama qaybta bariga gobolka maroodijeex ee booliiska waa halkan caawa joogtaan gobolka maroodijeex ama caasimadeena hargeysa ka kooban tahay wuxuu u qaybsan yahay laba qaybood oo territorial booliiski qaybta bariga hargeysa oo tan caawa joogtaan xarunteedii iyo qaybta galbeedka hargeysa mid waliba shaqo baaxad leh bay qabataa waa ku fargarayn doontaan caawa heegankii guud ama 99kii jamhuuriyadda oo dhan caawa booliiska wakiilka uga ahaa oo idinla socon doona intaa qaybaha maraysaan waa gaashaanle sare cabdicasiis oo hortiina fadhiya iyagaan idiin kala baxaya waxaan idin leeyahay ku soo dhawaado nala arka shaqada ciidanka booliiska caawa habeen axad ay soo galayso oo waxaanu ku sugannahay saldhigga New Hargeysa ee ku yaala bariga magaalada Hargeysa ciidamada iga dambeeya arkaysa waxa weeye ciidanka caawa heeganka u leh qaybtan bariga magaalada Hargeysa waxaanu la shaqayn doonaa caawa ciidamada bilayska oo bal hadda aanu isku dayayno inaanu sawir wanaagsan ka bixino sida ay u shaqeeyaan iyo sida ay u hawlgalaan barnaamijka waxaa ku daawan doontaan haddii alla yidhaahdo ciidanka bilaysku sida u shaqeeyaan ilaa waa beriga ayaanu ciidamada la socon doonaa sida u shaqeeyaan nooca dembiyada dhaca iyo waxa ay ka qabtaan taliye imisa askari baa halkan heeganka ugu waxa heeganigu ciidankii loogu talagalay saaka subaxii 6 subaxnimo ilaa caawa oo dhan ilaa 6 subaxnimo ilaa 6 kale maanta ciidankii heeganka ku ahaa oo ka kooban qaybta bariga oo ah tiro ku filan dhowr gaari gartay marka xaruntoodu waa halkan oo marba halkii looga baahday tagaan miya ciidankani halkii looga baahday tagaan waxaana hogaaminaya sarkaalka qaybta bariga heeganka ugu ah 24 saac aynu hadda ku jirno 6 subaxnimo galay saaka aroortana 6 subaxnimo ka baxaya gaashaanle xasan cabdisalaan isagaana doonaya inaad kelmadiisa weydiiso gaashaanle xasan cabdisalaan sida taliyuu inoo sheegay 6 saaka ayuu shaqada galay 6 baritana uu ka baxayaa taliye askarta halkan ku diyaarkii ma marba meesha looga baahday tagaan anigu xasan cabdisalaan yuusuf gaashaanle xasan cabdisalaan yuusuf baan ahay caawa anigaa leh heeganka qaybta bariga waxaan shaqada soo galay 6 subaxnimo ee saaka waxaanan ka digi doonaa haddii ilaahay idmo 6 subaxnimo ee berito oo sarkaal kale ayay bedeli doonaa sida qorshuhu yahay ciidankan halkanay diyaar ku yihiin waxaan haysan doonaa 2 baabuur oo istabageli doona waxaana soo mari doonaa kolba halkii wax looga baahdo ciidankaasi inay shaqo ka qabtaan marka ciidankani waa taageero miya waxay taageero u yihiin ciidamada kale ee saldhigyada kala jooga ciidankan asalkiisa waxa la yiraahdaa ciidanka heeganka oo ciidanka loogu adeegayo bulshada kala duwan meeshii wax ka soo dhacaan ciidankii heeganka imika aanba baxaya waxaa la ii sheegay in 2 gaari ay diyaar u yihiin ciidankana sidii taliyuu sheegay waxa weeye ciidan hadba meesha looga baahdo bariga magaaladan Hargeysa iyagu heegan waa inay ilaa aroorta ka shaqeeyaan B77 B99 dhaqaaji labada gaari ciidanka dhaqaaji butuuliyadii taagnayd iyo tii lugta ahaydba soo mar si degdega kor iyo hoos baanu ka wada soconno indhahaaga iyo dhagahaaga ha furaadaan saldhiggani waxa weeye saldhigga ugu weyn ee xaafadda New Hargeysa ee magaalada Hargeysa wuxuu leeyahay qayb dadka lagu xidho wuxuu leeyahay qaybtii dadku ay ka dacwoonayeen ee OB-ga loo yaqaano magacaaga Basha Cabdullaahi Ismaan Basha Udare taliya marka 24 saacadood dee booliisku waa shaqeeyaa dambiyada inta badan halkan idinku yimaada maxaa ka mid ah haddaan dambiyada inta badan kuu sheego halkan horta waxa weeyaan waa suuqii Hargeysa bartankiisii dambiyada badan ee ugu yimaada halkii goraale waa tuugo inta badan waxa moobil dhacay
wax la cararay waxyaalaha noocaas ugu badan hadiyo goraale suuqa bartankiisa dhibaatadaasina aad bay u badan tahay wax bur ku dakhray waxyaalaha ma garanaysaa toorida waxaas ugu badan halka suuqa bartankiisa qolkani wuxuu ka mid yahay qolka maxaabiista ay ku xidhan yihiin taliyuuna wuxuu ii sheegay in qolyaha xukuman halkan lagu xidho nin ka mid a naga ogolaaday inuu hadlo walaal magacayga waxaa la yidhaahdaa maxamed cabdirashiid cismaan waxa aan ka mid ahay maxaabiista ku sugan saldhigga New Hargeysa dembiga lagu haystayna muxuu ahaa dembiga la haystay waxa weeye horta kulli ibn aadam khadaa'un wa khayr khada'a tawaabuun ibn aadam ko dhan uu khaldama laakiin ibn aadamku ka khaladkiisa ka soo noqda shaqaale dawladeed baan ahay anigu marka waa kii maxamed xaashi dhamac gaariye lahaa bashar baad u tahay gafkii haddaad ka garowdo qalad gobbay caadadeetay kulli dembi aan galay ayaa halkan ku soo galay way dembiga ma noo sheegi karaysaa wuxuu ahaa haa dembigaan galay waan kuu sheegi karaa annagoo shaqaalaha dawladda hoose ah ayaa alaab baanu qaadanay dabeeto alaabta aan qaadanay aawadeed ayaa dembigeediina la mariyey waxbaan isir weydaarinay markaa dembigaa aawadii baan halkan ku soo galnay xaaladda ka warranta xabsiga horta ninka ragga ama qofka ama dadka ku dadaalaya inteeda la sheegaa waxna lama qayro horta ciidanka iyo taliyuhu maasha Allah way noo wanaagsan yihiin hadday meedhasho noqoto haddii xataa dawo noqoto anigu habeenaan xanuunsaday dee taliyaha halkaas baan ugu tago codsigayga waan u sheegay waxaan ka cabanayay waan u sheegay waxa uu igu soo dhiibay ciidanka mid ka mid ah dawadii aan ka codsaday waa wax ilaahay loogu mahadiyo hadday noqoto inta maxbuus ee meesha ku jirana meeshu intan bay laagtay waa lix qof iska okay maalintaan u baahan qolkaad buu yariyay markaa ma idin qaadi karaya waa lix saddex iyo saddex okay hawadiina waan haysanaa suuliga markaan u baahanno waan weydiisanaa askariga dalab baanu ka codsanaa maasha Allah uu noo fudaydiyaa dee dad baan intaa helin saldhiggii New Hargeysa ama gacan libaax imikaanu ka dhammaanaynaa waxaanu imika israacaynaa taliyaha caawowle heeganka bilayska Soomaaliland oo dhan gaashaanle sare Cabdicasiis Sheekh Ismaaciil annaga qudhayada hawshayda xooggeedii halkan uu ka bilaabmaya aad baan kuu salaamayaa gaashaanle sare Cabdicasiis waa maasantay Cabdisalaan caawada inaga wada shaqeynaa annaga qudhayada bilayskaanu ka tirsanaa waxa caawa waa inaad nala soo aragtaan bilaysku waxa uu qabto eeg bilaysku waa saaxiibka dadweynaha carruurteennu si ay nabad ugu hurdo innaguna nabad aynu ugu jiifno ayaanu annagu u taaganna u soo jeednaa 24 saacadood gartay caawa markaa heeganka Soomaaliland oo dhan bilayska adaa u heeganka bilayska dhammaan caawa insha Allah ilaahay hayla garab galo caawa anaa matalaya ciidanka bilayska meel kastoo ay joogaan waana in wada soconana caawo bal waad nala arki doontaa hawsha warbixinaha hadee ku saabsan qaybaha kale Soomaaliland taliyaha loo soo gudbinaya annagu laakiin inta Hargeysa iyo dambiyada dhaca iyo bilaysku say wax uga qabtaan ayaa barnaamij kala soconaysa imika waxaanu la soconnaa gaarigii taliyaha heeganka bilayska Soomaaliland ee caawa waxaanu ku soconnaa xaafad Sheekh Nuur la yiraahdo oo qoyga bariye magaalada Hargeysa ku taala taliyaha warbixinaystaba jooga ku soo dhacaya oo ku saabsan hadba wixii dambiyaa ee Hargeysa iyo Soomaaliland guud ahaanba laga soo sheegayo 5B99 hawsha maxaa ka jira meesha maxaa ka jira waan gartay waa hagaag ciidan badan oo butuuliya oo lugaynaya u dir warbixin degdegana ka keena jeebaraal ka dhigo taliyaha imika waxay kala war qaadanayaan taliyaha saldhigga Sheekh Nuur oo ah aagan aanu imika joogno taliye dhammaan soonaha saldhigga Sheekh Nuur waa nabadgelyo halkan waa dooxi daami ciidankii waa kuwa halka maraya shaqadii way socotaa si fiican bay sar u socotaa dhahayo dhago wahaydii furaaqaan ciidankuna sidii loogu tala galay ha u socdo haddii baraal ka dhigo waa ku ka kor iyo hoos baynu ka soo xidhin
qaybta sheekh nuur roondada caawa waxa uu leh kabtan cabdisalaan kabtan ciidankaagu caawa intuu ka kooban yahay اللهم صل على محمد هو سرعي لكن aragtihaan waad arkaysaa waa ciidan fara badan halkan dooxa way ku jiraan waxaan ilaalinaa waa ammaanka dalka iyo dadka hantida naf iyo maal booliisku wuxuu ka shaqeeyaa jeer uu ilaaliyaa waa nafta ilaa maalkooda wuu ilaaliyaa shaqada goormaad bilowday aduu saaka waxaan bilaabay shaqada 5 saakaan bilownay ilaa waan ku jirnaa gariga dambe ee caawana waan ku jirnaa marka aag intee lag bay idinku qaabilsantiin caawa ilaa naasa hablood ilaa eriyadan daami ilaa iyo sheekh nuur intaasaan qaabilsanay marka maxaabiista qabataan halkee ku xidhaan saldhigayga sheekh nuur wixii dembi leen qabano halkaasaan ku xidhnaa saldhiga sheekh nuur ku xidhnaa waxaanu iminka soo gaadhnay saldhigga dhexe ee bilayska oo ku yaalla bartamaha magaalada hargeysa taliya waxaan jeclay inaan ku weydiiyo wakhtiyada habeenkiia dembiyada dhacaa xilliyadeebay u badan yihiin horta sidiisaba dembigu male xilli nacam gooniya male xilli walba wuu dhici karaa dembiyada qaar baa waxay dhacaan subaxii way dhacaan habeenkiina way dhacaan laakiin dembiyada habeenkii dhaca waxaa ka mid a moobil la qaatay iyo laba qof oo islaayay iyo dagaal safayna iyo wax noocaasa oo aan saa u sii weynayn baa u badan dembiyada fiidkii dhaca arrinta ku saabsan ciyaalka dadka booba habeenkii moobayladoo kale ka dhaca mararka qaarkoodna waxyeellaba u geysta aad baa muddo dhowr sannadood looga cabanayay dhibaatadaas sidee tahay imika aad iyo aad bay u yar tahay waayo dembiyadaa waanu tira koobnaa waa budhcad oo kale lamana odhan karo waa budhcad oo wax weyn dee ma dhacayaan haddana dee moobil qof laga qaaday waa budhcadnimo oo aan diyaar loo ahayn inuu dee qofkaas ka qaado marka imika aad bay u yaraadeen boqolkiiba boqol kiisaska noocaasoo kale ana saldhigaad ku garanaysa inay yaraadeen da ahaan markaynu eegno dhallinyarada dembiyada noocaasa ku kaca intee bay jiraan waa 12 jir 13 jir ka ugu badani waa 16 jir qof intaa ka weyn waxbaba ma qaato waa dadka intaa wixii ka weyn waa nabadgelyo weyn oo markaa maxaa ku samaysaan maadaama da'doodu ay sidaa u yar tahay badanaa inta badan haddii aanu qofku ahayn qaangaadh xeer baa jira la idhaha xeerka carruurta oo ka bilaabma markuu qofku 14 jir yahay ilaa iyo 18 jir kaa hadduu ka hooseeyo waalidkii ayaa loo dhiibayaa waalidkii baa wixii uu geystayna laga qaadaya waayo maxkamaddiina kaa qaban mayso saldhigga dhexe muddo aad iyo aad u dheer ayuu halkan ahaa waxaana weeye saldhigga ugu weyn ciidamada bilaysku ay leeyihiin ee ku yaalla magaalada hargeysa qofkii yaqaanee waa bartamaha magaalada taliya halkanna ciidanka heeganku way ka ambabaxaan miya ciidanka heeganku way ka ambabaxaanoo way ambabaxeen intii suuqan dhexe ka shaqaynaysay dhammaan way ambabaxeen kuwii fogaana waxaynu ku mari doonnaa goobahooda waxaa joogta intii loogu talagalay imika inay halkan heegan ku ahaadaan oo haddii ay wax soo dhacaan inay saacaddaaba ka jawaabaan oo ay baxaan ciddii loogu talagalay intii loogu talagalay baa joogta hadda fadhigan gartay marka waa ciidan ka qaabilsan intan suuqa magaalada wixii dhibaato laga soo sheego qaybtan galbeedka ayay ku baxayaan way diyaar u yihiin ku soo dhawow taliya ciidankii qaybta galbeedka nasta saldhiggani dee waa taariikh weeye qofkii garanaya muddo aad u dheer buu halkan ku yaallay dembiyada badanaa la kulantaane suuqa magaalada hargeysa maadaama bartamiya aad joogtaan maxaad nooga sheegi karaysaa waxaan kaaga sheegi karaynaa waa dembiyada ugu badaniba waa suuq saldhiggan wuxuu ku yaallaa suuqii bartankiisii waa saldhiggan uguna taariikhda badan mushkuladaha ugu jira ee ugu badani waxa weeyaan la dagaalanka daroogada waxa weeyaan budhcadda iyo tuugta oo moobilka hablaha ka gaflaya ka qabashadooda waxaan ku dhahdaa wax kasta in la dagaalanka wax kasto ama argagixisa ha noqoto waa saldhigga ugu santarsan ee wax dhan kastiba u bixi kara wax ka qaban kara ama sida xashiislayaasha oo dooxay noo dhow yahay oo halkan intay galaan xashiishadii wax doonaan ama khamriga xamagtii ku cabaya waa qaybta waa saldhigga soo qaban kara dhibaatada maandooriyayaashu siday tahay imika muddooyinkani wax badan ogaan xidhnay sidii way ka soo yaraanaysaa muddooyin imika adigu ilaa 2 sano ah howlgallada badan ee samaynay awgeed way soo yaraanaysaa imika
dembiyada waaweyn qaybtan dhexe ee magaaladu siday ka tahay way ka sahlan tahay qaybtan dembiyada waaweyn way ka sahlan tahay xafiiskani waxa weeye xafiiska xidhiidhka dadweynaha iyo bilayska bal hadda waxay qabtaan baan iyagana weydiinaya anigoo basaska jigjiga dhexdooda maraya ayuu nin midi igu qabtay moobilkii ayuu iga qaaday kabacdi saldhigaan imi askarta ayaan ku leeyahay soo qabtaa ninka xaggan u jooga saa la igu soo qabto moobilka lagaa qaaday markaa nooceebo ay 20 gartay way imso qofay haayeen islaasha ka qaaday moobilka waxay haayeen laba wax uba ma siteen waxay siteen midi hadan ismaaciil إسماعيل محمد عقاب نور الشعيب محمد عفسية magaca adiga axmed baa leedahay marka sidan oo kale gabadhan oo kale ay dambi idin ku soo sheegto ku dhacay dadkiina aanay garanayn wajigeedoodii ha aqoonsato laakiin magacyadoodii oo kale aanay garanaynin sidee markaa u raadisaa horta sideedaba marka booliiska la idhaa dembiyada ka dhaca bulshada dhexdeedaan baadhnaano ama qof dhibanaa sida qodobka 12aad uu noo sheegayo anoo keena heerka halka ciqaabto oo dhibaato soo gaadhay sida gabadhan oo kale hanoo timaado ama sargaal dadweyne qof dadweyne hanoo keeno sida qodobka 20aad ee heerka halka ciqaabto dhigayo ama hanoo keeno qof muhiimiyad caafimaad joogo oo dhakhtar joogo oo caafimaadka aqoon adeega caafimaadka ha noqdo siyaabo kala duwan baa la idin soo iyo wararka nologde markay dhacdeen timaadeen reportka la geliyay baalista aan ku qorro si degdeg aan uga hawlgalaa markaa si aanu qofkan dhibanaha ugu adeegno iminka gabadhan oo kale waxay sheegtay in telefoonkii laga boobay dadkiina aanay garanaynin boobay oo dabcan dee suuqay ahayd oo saxmad badan sidee u raadisaa taasoo kale waxaan u raadinaa aqoon fiican baan u leenahay qof walba way kala duwan yihiin xirfadeeni baan leenahay ciidankaygii dhar cadii baa jooga dadweynahan xiriir wanaagsan la leenahay oo na siin kara ila wareedada naga aanu ka heli karnaa waxa kale oo jira aanu ka howlgeli karnaa markaaba goob dambi ka dhacan gaaraynaa si degdegadii sharcigaana tilmaamaya sida qodobka 14aad tilmaamayo xeerka habka ciqaabta waa inuu taliyaha saldhig markaa fursad intee lag bay leedahay gabadhan oo kale in telefoonkeedii ay u soo heshaan degdeg baan ugu soo helnaa nagu qaadan mayso waqti yar nagu qaadan mayso waqti badan waayo weliba iyadu dadkii maragadii ka qaadaya way haysaa laakiin may aqoonsan dadkan wejiyadoodu bay garanaysaa magacyadoodu may aqoonsan annagoo xirfadayada iyo aqoonteeda kaashanayna annagoo kaashanayna shacabkayaga annagoo kaashanaya ciidankayga kala duwan ee laamaha hay-adaha kala duwan ayaanu si degdega inta badan waanu ku guulaysanaa aad iyo aad baad umahadsantahay laakiin intii aanu halkan joognay bilayska waxa uu suurto gashay inay soo qabtaan ninkii telefoonka gabadha ka boobay oo sida arkayseen mididii uu sitayna lagu waday deedna bilaysku gabadhii waxay u celiyeen telefoonkii laga boobay ee mobilka ahaa waxa kale oo ciidanka bilayska intii halkan aanu joognay lagu soo wargeliyey in ilmo yari uu lumay ninkii ilmaha yar uu ka lumay ayaa meesha jooga aanu la kulmaynaa lumay walaal intee buu jiraa waa ilaa 10 jir meelahaas casarkii galabta ayuu lumay markaa sidaas awgeed baan saldhiga u nimid gartay marka xaafadeebu ka soo lumay wuxuu ka soo lumay halkan dooxa ka sheesay jiic aboorka la yiraahdo waa tay halkaas ka soo halaabay markaa ilaa hadda weli waan raadinaynaa ilaa casarkii gartay marka inaba cid idii soo sheegtay halkii ugu dambeeyay weli ma hayno cid noo sheegtay weli ma hayno marka ciidanka bilayska dee aad u timi oo aad uga warrantay mooyaane idaacadoo kale warkiisa ma gelin idaacaddana waa tan imiga maaragtay uu la hadlay taliyuhu la hadlay maaragtay ciidankii joogay idaacadda si loo wargeliyay idaacadda gartay khayr baan idiin rajaynayaa ilaahay idinkii waa heli doontaa insha allahu tacaala taliye waxaan imika la kulmay ninkii ilmaha yar ka soo lumay 10 jirkii carruur fara badan baa lunto inta badan idaacadda radio hargeysa ay sheegtaa ama wargeysyada lagaga warramaa
markaad eegto carruurta dib u soo heshaan tiradooda maxaad ku qiyaasay wallaahi boqolkiiba boqol waanu helnaa carruurta waayo dadka reer somalilan dee waa dad mid ah weeye waxa weeye ilmaha marka la waayo xaafad kaluunbuu jooga xaafaddaasi markay idaacadda ka maqasho ama ay waraystaan ee ay gartaan ama ay saldhig booliis keenaan saldhig booliiska waxaa ugu imanaya qofkii dacwoonaya sida iminka ninkan odayga ahoo kale kabacdina idaacadda markii la geeyo la soo qabto saldhiggii booliiska la geenaya ama nambarkii aan idaacadda u yeedhiyey ayaa qofkii laga garaacaya ilmihiisii waa lagu wareejinaya boqolkiiba boqol waa la helaa ma jiraan wax la waayo oo carruuri waa tay arrintii new hargeysa ka dhacaysay ee ciyaalkii shiidayey ee la sheegay inay ka sii dartay maxay ku dambeeyeen waxay isu beddeshay laba xaafadood oo safayna way islaayeen qola waa kuwii nagu yidhi gurigay xidheen qoladii kalena way soo kaxeeyeen oo saldhigga new hargeysa keeneen marka weli way socotaa hawshu waa lagu jiraa b77 b77 b99 qoladaa hayseen ma soo kaxayseen dhinacii kale hawshiisii ku jirnaa ayaan soo kaxaynaan kula joogaynaa haddii ilaahay ka dhigo waayo labada dhinacba soo kaxeeya new hargeysa keena haddii barraal ka dhigo waxaanu iminka joognaa isgoyska togdheer ee caanka ee magaalada hargeysa taliyuhu wuxuu warbixin ka qaadanayaa ciidanka halkan jooga taliyahooda maxamed hawsha ka warrama oo nabadgelyo taliya waxaanu iminka soo gaadhnay taliska dhexe ciidamada bilayska ee somalilan taliyuhu wuxuu u tegayaa halkan si uu uga warqaato gobollada iyo degmooyinka sida xaaladoodu ay tahay laakiin waxaa la yaab leh iyadoo gaadhiga uu yahay kii bilayska oo taliyiina uu nala socdo ciidankii bilayska ahaa ee kalena ay dusha saaran yihiin ayaa haddana heeganka halkan ilaalinaya ay jeegareeyeen in gaadhigani uu yahay mid kii bilayska markaasaa lana soo daayey taliya markaad adigu heeganka u leedahay ama sarkaal kasta oo heeganka u leh habeenka halkan u yimaadaa si ay u kala warqaataan gobollada iyo degmooyinka miya xaruntiisa uu ka ambabaxaya ee uu joogaya ee uu ku sugnaanaya ee uu awaamiirta ka bixinaya waa halkan waa xarunta taliska guud maadaama uu matelayo heegankii guud ee biliiska dalka xarunta uu mar walba gurigiisu waa halkaa guriga loogu talagalay in uu heeganka guud dego oo uu ku yara nasto ama ku tukado ama uu kabaa iskaga yara bixiyo wakhtiyadan wax xaaladii jirin wuxuu ku yaallaa halkaa riboodkana wuxuu ku qaataa halkan sare iyo halkan hoose oo ay labadii raadiyeeyoo gobolladu ay kala yaallaan waxaynu imika qaadan doonnaa warbixintii gobollada waa tay marka xaruntan iminka aynu joognay taliska guud ee ciidanka 24 saacadood baa laga shaqeeyaa miya 24 saacadood sidiisaba horta ciidanka bilaysku xafiisyadooda albaab ma leh waayo ciidanka bilaysku maba rawaxaanba saldhigyada bilaysku albaabkoodu waa gaadh weeye ma jiraan ciidan bilays oo rawaxa xaruntan haddii taliyaha iyo hogaamadu ay maqan yihiin ama shaqo ay ku maqan yihiin cidda joogtaa saraakiishii kale oo dhan dhammaan xarunta way joogaan xaruntana sidii caadigeeda shaqadu ay uga socotay maalintii inba habeenkiina uga socotaa waa noocee markaa dembiyada gobollada iyo degmooyinka laydinka soo sheego ee u baahan in laydinku soo wargeliyaa dembi kasta oo dhaca oo gobolka ka dhaca ha yaraato 2 qof oo islaayay ha u badnaato qof la dilay qof la dhacay wixii crime ahee weyn iyo crime yarba dhammaan waxaa dhaca oo dhan riboodkooda way soo bixiyaan gobolka ka waran xaaladda ka waran gobolka xaaladda gobolka waa boqolkiiba boqol weeye wax allaale wax nagu xilma jiraan insha allah bismillaahi kariim howlgalna waanu ku jirnaa xoog badan wanaagsan imika xoog badan wanaagsan waan gartay xaaladda xuduudda ka waran xaaladda xuduudda way fiican tahay waxaanu leenahay gacansaar baanu leenahay gacansaarkaanu leenahayna wuu wanaagsan yahay xabiis badan
oo loo soo qabteen oo xagtaa loo soo qabteenna way jirtaa gacan saar wanaagsan maan leedahay xuduudda waan gartay waxaad iiga warantaa nabadgelyada guud iyo roondada caawa ka waran gobolka roondada caawa iyo nabadgelyada guud waa 100% wey ciidan badan baa igu jira roondada igu jira xoog bay wanaagsan tahay waxaa annaga nagu badan qamriga iyo xashiishada oo xadka ayaa noo dhow waxa qura aan la dagaalamay dadweynaha iyo bulshada ay naga caawiyaan waxa weeye qamriga iyo xashiishada habeen kasta waan soo qabanaa habeen kasta habeen weyno habeen labaadka waa la soo qabtaa caawa maxaa soo qabateen kusoo qabanay gacanta lagu hayaa waana xidhay dhowr iyo 20 litir litir afar 7 litir oo laba nin ku xidhan oo sida booskay caloosha iskaga soo xidhan caloosha ayay iskaga soo xidhan sida suunka isku soo xidhan shaarkana oo ka sareysiinaya taliyeenka waxaad la hadlaysay gobolka awdal oo lagaaga warramayay xaaladdu say tahay iyo wixii dambiye ilaa imika ka dhacay caawa qofka tusaale ahaan magaaladan hargeysa jooga ee doonaya dambi dhacay inuu idiin soo sheego sidee buu idinla soo xidhiidhaya way dhib yar tahay dhammaan haddii qofkaasi aanu telefoonada iyada haynin wuxuu garaacayaa 3 oo labada shirkadoodba ah ayuu garaacayaa telefoonkii haddaan ka hadlaynay 999 markuu garaaco waa laga qabanayaa operatorka meesha fadhiya ka qaban xaruntan ku soo dhacaya xaruntanna waxay hawl gelinaysaa ciidankii waxay leedahay ninka muwaadinka noocaas ay la soo hadlay nambarka garaaca hawshiisa wax ka qabta sidaas adeedna loogu ambabaxaya marka way dhib yartay qof kasta oo muwaadin oo la kulma dambi dhacaya ama isaga ha ku dhaco ama cid uu ku dhacay la kulma kaliya wuxuu soo garaya caawiyo nambarka 999 hore u soo aragnay shantaraalkii weynaa ee aynu qaybaha kala xidhiidhaynay iyo magaalada ee telefoon ahaan aynu kala xidhiidhaynay haddana waxaynu taaganay raadiyihii iyo qaybtii qoraalka taararka soo dhaca ee gobollada la qabanayay aynu kala hadlaynay waxaynu la hadli doonaa gobolladii may maqlaysaa ma kula fadhiyaa taliyihii qaybta iyo sarkaalkii heeganka lahaa waa taliyii qaybta waayahay ka waran xaaladda iyo nabadgelyada guud xaaladda degmaduna aad iyo aad bay u fiican tahay waa nabadgelyo wey dhammaan waa la isku waray waaya alxamdulilah allah inoogu wado sida arkayseen halkani waxa weeye qaybta isgaadhsiinta ee ciidamada bilayska ee lagaga warqaato xaaladaha gobollada iyo degmooyinka somalilan taliyahana ka mid ah ragga taliyayaasha halkan jooga magaca khaliif maxamed axmed baa la yidhaha gaashaanle khaliif maxamed axmed howlgelinta qaybta isgaadhsiinta bilayska muddo intee lag baad ka tirsanay adigu kan ilaa maalintii la aasaasay ilaa 91kii waan ahaa kii horena waa ahay laakiin kan ilaa 91kii waan joogay gartay inta badan dembiyada gobollada ka dhaca laydinku soo wargeliyaa maxay ka kooban yihiin dembiyada gobollada ka dhaca ee lagu soo wargeliyaa waxay ka kooban yihiin dilalka dhaca ee degdega ah iska horimaadyada beelaha muxuu kufsiga dhaawaca shilalka tuugta muxuu gubashada dhulka gubtay muxuu ahaaye yacnaa waxyaabaha wax kasta kiis kasta oo dhaca oo ka dhaca dalka somalilan ee aan caasimadda gudaheeda ahayn halkaasana loogu soo gudbiyaa aanu qabanaa riboortka idinkuna markaa ayaa u gudbisaa waxaanu anaguna u gudbinaa cidda ay markaa ugu badan ee loo gudbiyaa waa hoggaanka howlaha cid iyadoo taliyayaasha markaa meesha taliyayaasha sare iyo taliyayaasha hoose intaba ogeysiin la siinayo oo la ogeysiinayo taliyaha ciidankana la ogeysiinayo aad iyo aad baad umahadsantahay xaruntii dhexe imika waa ka dhammaanay maxaa inoo xiga waxaa inoo xiga caawa cabdisalaam waxaad ballan qaaday inaad ciidanka bilayska la soconayso waxaynu diyaar u ahaanaynaa ilaahay ma keene ee dhacdo kastoo ciidanka bilaysku ay caawa heeganka ugu jiraan waad nala gelaysaa
waxaanu joognaa xaafadda badda cas ee magaalada hargeysa deedna ciidanka roondada ah oo iyagu lugaynayaanu iska soo horbaxnay waxaa lai sheegay in dad xaafadda degani ay bilayska la shaqeeyaan walaalo magacaa magacaygu waa amaal yuusuf cabdi amaaley markaa bilayska see loo shaqaysaa anagu waxnahay community police marka maadaama community police-ka aanu nahay dee xitaa shacabkan kale anagu bilayska waa naga faro dhuudhuubanahay sababtoo ah marka guryahan oo kale marka wixii guri la kireysanayo dee annaga oga aqoon badan xaafaddii bilayska marka waa inaan taliyii saldhigga ama rugtii xaafadda markaad leedahay community police-ka ma bilayska ka tirsantii maya shacab iyo bilays wada shaqeeyaanna marka waxaan isku nahay community police marka wixii xaafadda soo gala ee anagu aanan fahmi weyno nu garan weyno dee waa inaan booliiska la xidhiidhsinaa maadaama anaguna amnigii aanu kala qayb qaadanna booliiskii oo matalan oo kale haddii gurigii maandooriya lagu soo rogayo oo kale haddii luuqyada ciyaaladu ay xashiishadaha ku cabaan ama ay ku iibiyaan ama ay kaga ganacsadaan oo kale waa inaan booliiska la xidhiidhsinaa waxyaabaha inta badan aad la kulantaan ee xaafadaha ku aragtaanee bilayska ku wargelisaan maxaa ka mid a waxaanu la kulannaa matalan oo kale ciyaalada yarare dee maxay dee budhcadda ah ee saafafka sidata ama mindiyahoo kale sidatay dee wax boobaysa oo kale moobilada dadka ka qaadaysa ama ku dilaysa waxyaabahaas oo kale waxaan daraagiska isticmaalaya iminka maandooriyahoo kale oo maandooriyihii dee 10 qaybood buu qaybsamay waxa weeyaan waa dareejinkii waxa weeyaan waa xashiishadii oo iyadu smokingkii ah iyo xatii borderska had intaba dee way jirtaa marka intaaba markaan ogaano bilayskii intaba waan la xidhiidhnaa bilayskina waanu soo sheegnaa marka bilayskuna isla daqiiqadaaba hadalkayaga way ka jawaabaan oo ka jawaab celiyaan kaasi kaga fal celiyaan dee goobtiina yimaadaan dee ciddii markaa dembi leh ee aan wax lagu eedeeyo iyaguna ay gacan bir la ku qabtaan aad iyo aad baad mahadsantahay waxaanu imika soo gaadhnay saldhigga dhexe ee degmada koodbuur oo ku taalla waqooyiga dhexe ee magaalada hargeysa weli waa fiid hore weeye imika saacaddu waa 10:10 taliyaha saldhigganaa nooga warrami doona ee hawsha caawa u leh faldambiyeedyada caawa xaafadan ka dhacay ama degmadan koodbuur iyo dadkay ku soo qabqabteen waxaase la ii sheegay in arrin marmar yar dhif dhacda oo dhibaato aad u weyna oo ah ilmo yar oo dhowr biloodun jiray oo meel bannaana lagu soo tuuray oo caawa saldhigga lagu hayo ilmaha yarna waanu arki doonaa haddii aan la yidhaahdo waxaa kaloo taliyuu nooga warrami doonaa marmarka dhibaatadaasoo kale ay la kulanto ee carruurta yaryar ee dhalatay lasoo tuuro bal hadda waxa ay ku sameeyaan iyo sida ay u daryeelaan ciidamada bilaysku taliye darajadaada waan arkaa gaashaan laa tahay magacaa maxamuud cabdi cabdillahi camuud alana waa tay maxamuud waxaan jeclay inaan ku weydiiyo bal hadda caawa xaaladda degmadan koodbuur sidee tahay xaaladdan wallaahi marxalado badan bay soo martay markii hore iminka waxay maraynaa xaaladdii ugu wanaagsanayd markii hore dhibaatada ciyaalka iyo tuugta iyo way badnaan jireen iyo daraagisku laakiin iminka waxaad moodaa inay aad usii dabar go-ayso sii yaraanayso maxaa ugu wacan bay kula tahay hoos u dhaca waxaa u dhacan sanadadan dambe biliisku dardar badan bay sameeyeen ka hortag badan bay sameeyeen biliiskaas gacanta saaqaray iyo dadweynaha oo iskaashaday ayuunbaa ugu wacan baan malaynaya gartay caawa maxaabiistaa soo qabqabateen haddii tusaale aynu usoo qaadanno faldambiyeedyada ay ku jireen maxay ahaayeen waxay ugu badan yihiin kuwa moobilada qaada ay ugu badan yihiin daraagiskuna way badan yihiin daraagis caawa maana soo qaban laakiin waxaa kuwa moobilada qaadunbaa ugu badnaa waxaanu soo qabanay gartay dhibaatada dhaca moobayladu mararka qaarkood waxay keentaa sida la ii sheegay in dadka site ee la dhacayo in dhaawacyo loo geysto taasi iyadu ma badan tahay way badan tahay markay moobilada qaadayaan laakiin markii hore ka sii badnay imika waxaad moodaa inay ka yar tahay moobiladun bay qaadaan ka yacan dadka gartay imsaa ku soo qabateen markaa moobaylla caawa waxaa noo xidhan 6 baanu ka qabanay caawa howlgalkii caawa halkay ku jiraan markaa xabsiga ayay ku jiraan ma arki karaynaa mayaaqii maxaabiista habeenkii looma geli karo way adagtahay in loo galaa waan iska ilaalinaa habeenkii maxaabiista wax ilmahan yari waxa weeye ilmihii yaraa ee markii dhaweydaan sheegayey laba dumara ayaa saldhiggan koodbuur keenay meel bannaan ay ka soo heleen oo ilmaha yar la dhigay walaal ma
inan baa mise waa inan waa inan weeyo gabadh gartay markaa qiyaas ahaan dee dhowr bilood bay imika jirtay ha waa ilaa 5 bilood ilaa 6 bilood meelaha gartay dumarka idinkeena markaa halkay ka soo heleen waxay ka soo heleen guri baa la hordhigay guryahan labadan dumar ee guriga degan yihiin ayaa la hordhigay dee tan markay dukaankay is yidhaahdeen wax u doonta markay albaabkii fureen waxay arkeen ilmo yaroo kaabadii yaalla dabadeed way ku naxeen way soo qaadeen saldhigay keeneen sidaasaanu riboodkii kaga qornay in ilmaha yaroo la tuuray loogu keenay saldhiga carruurta yaryaree sidan oo kale loo tuuro intay in leg baa la kulantaan tusaale ahaan bishii oo kale waxaa laga yaabaa imika ma badna waqtiyadii hore badnaan jirtay imika waa ilaa 6 bilood hal mar 6 bilood dilintaa degmada Koodbuur hal mar baa la arkaa waxaanu geynaa xarunta ciyaalka lagu xanaaneeyo gartay marka ilmaha yaroo kale goorma gudbinaysaa isla bari subaxnimada xeer ilaalinta iyo maxkamadda degmada ayaanu qoraal qoranaa caawana gabadhii heshay ayaa noo haynaysa oo aan ku ogaanaa gurigeedana soo arkanaa kabacdi maxkamaddu markaa waxay amar ku siin doontaa meelaha ciyaalka lagu xanaaneeyo inay ilaaliyaan cabdisalaan waxaynu soo gaadhnay saldhigga aadan shiine waa saldhigyadii dambe ee cusbaa ee sida fiican in securitigoodu uu 100% adag yahay loo dhisay oo caawa ciidankooduna dhammaan halkan aynu ku aragno istaan bay ku yihiin bolaynu warsan doonaa hawsha saldhig u hayo waxaa nagu xiran dhowr iyo toban xus baa nagu xiran saldhigan dambiyada ay sameeyeen markaa maxay isugu jiraan waxay isugu jiraan sida dhaawacyo dhul la isku dilo oo kale waxyaalo noocaas daraagis bay isugu jiraan taliya haddaan adiga kugu soo noqdo dhibaatada dhulku muddo sanado fara badan ayay soo jiitamaysay imika sida xaalkeedu yahay wallahi hadda dhulka inta badan berigii hore cabdisalaan oo waad garanaysaa waa la isku dili jiray xitaa bileyskaa lagu laayay laakiin imika alxamdulilaahi rabbil caalamiin qof waliba waxa uu gartay wixii uu xaq u lahaa in yaroo murani uu ka dhaco waa laga yaabaa laakiin dhul la isku laayo oo dagaal ka dhaco imika saldhigan hadda aynu joognaa waa saldhigga aadan shiine waa koonihii magaalada waa dhinacii nacam ama dhulka bannaan lahaa ama dhulka la isku qabsan kara lahaa waxa la isku qabsadaa aad iyo aad buu u yaryahay 100% aad iyo aad buu u yaryahay sidii berigii aynu naqaanay ay dee dhinaca Koodbuur iyo dhinaca kale bannaanka dilku ka dhici jiray ma jirto imika waana saldhigga dee imika aan odhan karro dhulka bannaankiisii wadadii 200 ilaa kantaroolkii kala dhinacane weynaa ee galbeedka looga baxayay marka dilka isku qabsi la isku qabsado oo dibadna sharci lagu kala baxa mooyaane dil la isku dilay iyo dhaawacyo la isku geystaaba aad ma jiraan intii aanu ku sugnayn saldhigga aadan shiine ee waqooyiga magaalada Hargeysa sida arkaysaan nimanka dhalinyarada silsilada ku xidhan tahay ayaa hadda la keenay nimanka dhalinyarada maxay sameeyeen ku soo qabateen nimankan dhalinyartii meel halkaas oo taawar yaro bari dhaweyd halka laga dhigay ayay nimankii waxay ahaayeen carqalada galiyay meesha gubay caawaan dabeeta soo oran taawar kuwan isgaarsiinta kuwan isgaarsiinta way goorma arrintaasi dhacday markaa oo meesha ay gubeen ayaama dhaweyd way inta waan ku daba jiray horbaxanyadii u horeysaan soo qabanay sidaasaan u soo gudbinay aad iyo aad baad u mahadsan tahay sareegaas maxamed aadan saqadi dabagale su-aasha ugu horreysan ku weydiinaya waxa weeye xaaladda nabadgelyada ee Soomaaliland imika sayte cabdisalaan aad iyo aad baad u mahadsantahay xaaladda guud ee jamhuuriyadda Soomaaliland 100% weey wax dhibi ma jiraan marka dee laga reebo waxyaalaha yaryar boolisku la nool yahay
oo iyagu aan wax aan combeer lagula samayn karin amniga guud marka loo eego inaga dadka sarawdhidka inagu ama inagu hareeraysan jaararkeena iyo inagu halkeenu taaganay boqolkiiba boqol waxa la wax dhibo maanta waddanka gudihiisa amni darro ka jira ma jiraan dembiyada ugu waaweyn ee Soomaaliland imika ka dhaca maxaad ku tilmaami lahayd dembiyada crime-ka ee metal boolisku la dagaalamo waxa dee jira daraagiskii baa jira oo khamrigii iyo xashiishadii oo dee farabaasi nagu haya oo dagaal badanna booliska iyo dadweynuhuba la galeen dawladduba dhammaan lala galay waxa jira kufsi baa jira isaguna oo isna marka xashiishada dhalinyaradu cabto ama ay walaaqato iyadu sidoo isna dhaca baa jira waxa jira dee waxyaabo badan oo noocaas ah jira burcadii way yaraatay kooxiis eriye jiray way yaraadeen tuugtii way yaraatay iska hor imaadadii kale way yaraadeen laakiin waxyaalaha accident iska dhaca wuu jiraa marmar laakiin labada waxay ugu weyn soo qaadanaya waa daraagiska iyo kufsiga ayaa imika waxyaalaha ugu maaragtay xagga marka crime-ka boolisku la dagaalamo loo eego bishii hore sidaan ka warhayo waxa uu dabaal degteen sanad guuradii 28aad ee ka soo wareegtay markii la aasaasay ciidamada bilayska ee Soomaaliland muddada bilaysku ay soo jireen iyo sida xaaladoodu imika tahay markaad eegto maxaad ku tilmaami lahayd boolisku sidiisaba dee waxa la aasaasay waqtiga aad sheegtay 11 sarkaal baan iyagu horreeyay soo xukumay ninba inbuu ku soo kordhiyay mid waloo yimaadaana inbuu ku daray hadday tayada tahay oo tirada kordhinta tahay hadday tababarka tahay hadday gaadiidka iyo isgaarsiinta tahay hadday dhismayaasha tahay ciidanku mar walba uu kacay marka maantana kulli anaguna waxbaan ku dar oo waxa jira tiirar aanu ka dhiganay billaris reformka aanu ka dhisnay ciidanka sida maaragtay ciidanka tiradiisa oo rag dhalinyaro ah hadday madaxda tahay iyo hadday tahay Allah mas'ala askarta rag dhalinyaro oo bilaabal wada la diyaariyo oo madaxweynuhu 45 nin baa ayuu ayaa ka xataa aanu ka qaadanay shaqo qarantii barnaamijkii aad ku qaaliga ahaa isgaarsiintii iyo tababarkii iyaguna aanu aad loogu dadaalay dhismayaal badan oo la sameeyay gaadiidkii marka community policing oo meesha weyn inuu maaragtay aanu isla heshiiska saaraa marka ciidanku marka si weyn loo eego arinta ugu weyn ee wadnaana marka ciidanka itiga in la sameeyo wax la yiraahdo saaxiibka dadweynaha in laga run sheego arintan u soconaa muhiimadii wata ciidanka uu dhisay uu jira tababar ahaan buu jira aqoon ahaan buu jira quality ahaan buu jira gaadiidka uu jira isgaarsiinta uu jirta laakiin in la helo saaxiibkii dadweynaha oo rasmi ah qodobkan u soconaana waka marka maanta waxaan oran karaa dee meelihii maalmi ugu wanaagsanaa marba marka dambeysana uu sii wanaagsanaa insha Allah dhalinyarada taliya aad sheegtay ee shaqo qaran aad ka qaadateen waa dhalinyarada jaamacadaha ka soo baxay darajo maxayaba ku qaadataan iyagu se madanaynayaan inay blaze ka mid noqdaan shaqo qarantii ugu horeysay way tiradoodu way badnay dad ilaa 200 aanu malaynayna ku dhowdhoween ama wax yar ka dhimayeen ayaa iyagu ciidamada iskoodu doortay dabeedna waa la tababaray oo muddo sanad iyo dheeraad dib loo tababaray oo ciidamadii dib loo tababaray shaqadii qaranka tababarka hore la qaateen marka laga reebo rag iyo dumar boo aan ka soo habluhu mala 10 ay hayeen sidaan filayo iyaga ku qancay oo doortay dastuurkeenu sidaas uu tilmaamaya markii dambe madaxweynuhu maamuus weyn buu sameeyay laba xidigood baa lagu qaatay marka anaga 45 maana soo raacay 4 biloodo boolisiina baanu dib ugu sameeyno baray oo kuliyadeedana aanu ka soo saaray dhammaantoodna 45 kiiba ragga maanta laf dhabarta waa ciidanka muddo imika sanad dhowdhoway shaqaynayaan shaqada ayaan dhammaan waxaanu ka dhignay wada taliye xigeen saldhigyo si ay shaqada u bartaan markii dambena qaar baa taliye saldhigyo noqday waxaan rajaynayaa sanadka soo socda inay saldhigyada iyagu la wareegaan waa niman aqoon leh waa niman wadaniyiin waa niman dhalinyaro ah waxaan isleeyahay waa nimanka dhaxli doona ciidamada insha Allah mustaqbalka hogaaminta markay timaado baahiyaha bilaysku ay qabaan kuwooda ugu waaweyn maxaad ku tilmaami lahayd maanta baahiyo way jirayaan badan mushaharka askarigu qaatay Soomaaliland oo booliska ma ayaaba iska koobanba mushahar kooban buu qaataa waa nin xaas leh baahida aad maanta Cabdisalaam oo leedahay oo dhan buu leeyahay ninkaas hadduu caruurtii ba ka bukoonaysa gabadhii ba ka bukoonaysa waa doctor mushaharkiisa kooban
baahidu way ku hareeraysantay laakiin waxaan aaminsanay boolisku quramaha ciidamada qarankaba inay yihiin niman wadaniyiina raggii ka soo hadhay SNMT iyo raggii dhalinyarada ku biiray iyo raggii ciidamadii aan iska soo horjeednay beriga hore beelahan Soomaaliland ka kooban laga abuuray dad wadaniyiina oo ugu wadanisan ugu muwaadinsan dadka Soomaaliland baan u haystaa dadka ciidamada ku jiraan ciidamada bilayska ka hadlaysa ma ciidamada dhan baahida boolisku leeyahay ciidamada kale way ku hareeraysantay laakiin boolisku dhibaatada dheeraad ku leeyahay waxa weeyaan wadad 24 saac soo jeeda dadku way hurdaan isagu soo jeeday crime-ka oo dhan buu la dagaalamaya burcadii buu qabanaya kufsigii buu qabanaya dilkii buu qabanaya wuxuu qabanayaa tuugii buu qabanaya wuxuu qabanaya mari low dherigii buu qabanaya wuxuu qabanaya daraagiskii buu la dagaalamaya cashuurtii buu soo saaraya taraafikadii wasaaradii gaadiidku la shaqeynaya maxkamadii oo dhan iyo xeer ilaalinta oo dhan buu la shaqeynaya dawladdii hoose la shaqeynaya xuduudii oo dhan buu gaadh ka haya oo airport iyo deked aanu joogin ma jirto waxa haddana wax alla waxa crime uu soo qabtay oo dhan waxa la rabaa intuu kiiskii dhisay inuu cadaaladda horgeeyo shuruucdii dalka la rabaa inuu socodsiiyo oo shuruucdii dalka oo dhan booliska socodsiinaya wuxuu samaynayaa miyadu xataa booliski ayuu la shaqeynaya oo xataa dadka isdilay miyada ayuu kala dhex taagay ugaadhii iyo reer miyigiibu ayuu la shaqeynaya marka waxa weeye waajibaadka boolisku aad iyo aad buu fara badan yahay waa nin mar walba soo jeeda oo taagan oo diyaarsan oo aan mar qula nasanayn bini'aadmigu cabdisalaanow bini'aadmigu sideedaba wuxuu ku shaqeeyaa inuu marna nasto marna shaqeeyo there is no free waa qof mar walba soo taagan boolisku taliye markay noqoto dembiyada aad carabowday iyo qaar kaleba inta badan bulshada Somaliland maadaama ay tahay bulsho qabaliya cuqaasha ayaa inta badan ka wada xaasha wixii reeraha ka dhaca oo kufsigu ka mid yahay oo waxyeelada kale ka mid tahay sida wada shaqeysaan iyaga annagu horta dee cuqaashu shaqa naga dhaxaysa laakiin waa crime kufsigu annaga markuu na soo gaadho kufsigu hadday beelo inta isqarsadaan annagoo ogeyn heshiiyaan taas waa wax gaar ah laakiin waa wax ka sarreeya kufsigu wax beeri ka heshiiso kufsigu waa crime qof buu ku dhacayaa la dhaawacayaa damiirkiisa baa la dhaawacayaa shakhsiyadiisa baa la dhaawacayaa qofka waa la baarayaa maxkamad baa la saarayaa wuxuu ku cadaatana kiis culus baa ku dhacaya odayaashu markaa faraan bay idinka qaadaan mise way ka daba yimaadeen waaba nagala shaqeeyaanba ta gobolka markaynu eegno xuduudaha wadamada jaarkii way isu furan yihiin inta badan dadku maalinba dhinac bay joogaan falal argagixisadu ka mid tahay ayaa gobolkan ka dhaca sidee ugu diyaarsantihiin iyaga waan u diyaarsanay ciidamo u diyaarsan ma baanu leenahay gaar ciidamo u diyaarsan oo aan wax kaleba ka shaqeyn baanu ayaanu leenahay waanaanu aadna isha waanu ugu haynaa runtii waanaanu maaragtay insha allah waanu maaragtay hawshaasu ciidan dhinac walba ugu diyaarsan baanu leenahay wadamada kale gobolka sidee uga wada shaqeysaan information sharing baanu leenahay marka laga reebo Soomaaliya Ethiopia xiriir baanu leenahay information sharing baanu leenahay Djibouti waanu leenahay maaragtay dawlado kale oo badan baanu leenahay South Africa baanu leenahay Ingiriiska baanu leenahay sababtu waa maxay waxa weeye maanta waxa weeyaan waxa weeyaan kuwan jaarka aynu wax la cross border ko dhan baanu ayaanu iska kaashanaa guud ahaan information sharing baanu leenahay taliye markaa waxaad sheegtay inaydaan Soomaaliya lahayn wax wada shaqeyna xagga ammaanka markay timaado maadaama dhibaatada xooggeeduna Soomaaliya ay ka dhacayso bal wixii siyaasadii ha joogaane xagga nabadgelyada in laga wada shaqeeyo sidoo aragtaa khalad baan arkaa waa inuu siyaasadda ka heshiino horta siyaasadoo laga heshiiyey mooyaane nabadgelyana ka wada shaqeyn inay Soomaaliya iman ka raba waatay adiga haddii su-aal kugu saabsan aan ku weydiiyo muddo dheer baad ka mid ahayd ciidamada militariga ee Somaliland takhasuskaaguna xagga ciidanku ah militariga sideebaad markaa isaga bedeshay inaad militarigii iyo hawshiisii faraha ka qaado aad taliyihii bilayska aad ku shaqayso cabdisalaano horta hore su-aashan waa la weydiiyey marka hore hogaamintu waa isku mid hogaamintu isku mid weeye boolisku waa runtaa xeerar buu ku shaqeeyaa waxaasoo kiis dhacay oo dhan baa la rabaa inuu marka horena xeer ku qabto marka dambena xeer maxkamadda ku horgeeyo
kiiskii xeer qodob waafajiyo waa runta laakiin hogaaminta guud iyo maamulku waa same oo maaragtay waa same wixii farsamo ahaydna bartan markaan imid rag waaya aragoo badan baa jiray oo boolisa raggaasaan dee ayaan la tashan jiray ku waday dee iminka 2 sano iyo bar baan maray aniga ba qualified ah iminka maanta niga boolisan ma jiro dhinaca tababarada markay timaado maxaa ugu mudan baad odhan lahaydee maanta bilaysku ay u baahan yihiin khaasatan markay timaado tanaad ka hadashay in bilayskii laga dhigo saaxiibka dadweynaha tababar badan bay u baahan yihiin baadhistu tababar bay u baahan tahay mar kasta joogtaa madaxdu dhalinyaradii tababar badan oo hogaaminay u baahan tahay mar kasta joogtaa anti riyoodka waxaa la dhahaa mudaharaadada tababar joogtaa bay u baahan yihiin counter terrorismku tababar joogtaa bay u baahan yihiin investigationka CID tababar joogtaa bay u baahan tahay human right-ka tababar joogtaa bay u baahan yihiin waxa la dhahaa community policing-ka sidii bulshada iyo dadweynuhu u wada shaqayn lahayn tababar joogtaa oo mar kasta ay u baahan yihiin sababtoo ah inta aanu dadweynaha isu jiro ayaanu dembigana isu jiraa dadweynaha markaanu mar alla markaanu isdhex galno dembigu wuu yaraadaa marka dadweynaha aanu kala fogaanina dembigu wuu badanayaa sababtoo waxaanu ku shaqaynaa waa isdhexgalka dembigu xaafad buu yaalla ninka dembiga geysanaya xaafad buu joogaa bulshada intaanu isku xidhanay un baanu dembigu ayuu dembigu yaraantiisuna tahay marka meesha himilada weyn aanu u soconnaa waxa weeyaan inaanu community policing-ka ama saaxiibka dadweynaha si dhaba aan boolisku uga run sheego dadweynaha iyo booliskuna isku mid noqdaan saldhigu waa noqdaa saldhigii xaafadda habeenkii waa inuu marka la seexanayo xaafadda wixii ka dhacay subaxdii loo soo sheega oo bulshada xaafadda kala gedisan saldhigga isku xidhay taliya saldhigyada magaalada Hargeysa qaar fara badan oo kamid ah ayaanu soo maray habeen dhaweedo ciidanka bilayska iyo aanu la soconay sida uu shaqeeyaan eegaynay waxyaabaha aan soo arkay waxa kamid ahaa in dadkii rumaanka ahaa iyo kuwii la xukumay saldhigyadii ay ku wada xidhan yihiin dhibaatada maxaa keenay magaalada Hargeysa wada ogtay dee way weynaatay bulshadiina way badatay ummad badan baa ku nool jeelka dee kii bariga kii Hargeysa baa imika inoo dhisan marka maadaama jeelku had iyo jeer kooban yahay ayaa kalifta in si ku meel gaadha muddo yar 10 cisho kale iyo wax lamida ayaa ninka xukuman halkan lagu hayn karaa laakiin markiiba waa la qaadaayo 10 cisho mar baa la qaadaayo la geeyaa inta la ururiyo laakiin waxa halkan ku sii jira maaha laakiin soo ma dhacdo mararka qaarkood in sharcigu uu ogol yahay 48 saacadood qofka marka la soo qabto tusaale ahaan mararka qaarkood ma in lagu hayo ma sidaas maaha 48 saacadood waxa weeyaan boolisku inuu maxkamad ku horgeeyo eedaysana laakiin taasi ma dhacdaa 48 saac xiraalinta weydii iyo maxkamada qof la soo xidhay oo 48 saacadood ka badan boolisku hayn kara ma jiro hadduu dil geystay hadduu gargaxisan yahay karaam noocu doona hadduu geystay wuxuu doonaado hadduu khalkhalgelin nabadgelyo sameeyey 48 saacadood gudahood baa maxkamadda lagu geeyaa dabeedna inta dambe boolisku wuxuu ku haynayaa rumaan haddii baaritaan dheeraada ay u baahan tihiin maxaa samaysaan markaa isagoo maxkamadda laga xalaaleeyey ayaa kolba la soo baadhaya rumaanka inta la doono waa lagu hayn karaa kiiskiisa inta la soo dhammaystirayo qofku hadduu imika qof dilo oo qofkii kooma ku jira ilaa uu bogsado la xaqi maayo kiiskiisana lama gebagabayn karo intaaba rumaan baa lagu haynaya laakiin waa inay maxkamaddu rumaanisaa waxyaabaha kale aanu aragnay ee dembiyadu ay u badan yihiin waxaa ka mid ah dhallinyaradan moobaylada boobta oo habeenkii dadka dhibaato xoog leh ku haya kuwa maxaa tallaabo ee hore uga qaadeen maxaase idinka qorshaysan imika cabdisalaam taasi imika way yaraatay malawa dibadda way yara baxday taasi imika aad bay u yartay way badnayd laakiin imika kooxii is eriyan jiray magacyada la baxay isdiri jiray way yaraadeen burcadii dadka leyn jirtay wax xoogi jirtay way yaraatay tuugtii jeebkana way yaraatay suuqa Hargeysa mar xogagaal u noqo dadka warayso aad bay u yartay laakiin ninka marka la soo qabto waa la baaraa kiiskiisa baa la cadeeyaa maxkamadda la horgeeyaa xukun buu leeyahay iyo qodobo lagu xukumo ugu dambeyntii maxaa fariin aad u diraysaa dadweynaha Soomaaliland wallahi cabdisalaanow waan kuu sheegayoo booliska haddaanu dadweynuhu la shaqaynahayn shaqada aanu qabanaynaaba iska yaraanaysa xagga inaanu criminalka ama dembiilayaasha la dagaalanno jaanis bay helayaan dadweynaha waxaan ku boorinayaa amba ku hambaliyeynayaa inay si wanaagsan noola shaqeeyaan waxaan ku hambaliyeynayaa inay kalsooni iyo kalgacal weyn noo muujiyaan
waad ogtay tusaale ahaan beri dhaweyto halkan maalintii aynu taageerayna dadkeenu taageerada ugu muujinaya qoladii xildhibaanadii ingiriiska inooga doodayay inamadii iyo hablihii booliska ahayd dadweynaha ay si wanaagsan cagta iskula qabsadeen waanu dhiirigelin sababtu waa maxay waxaan doonaynay bulshada dadka saaxiibka dadweynaha inaanu kor usii qaadno inuu dareenka dadkana tusno booliskana aanu tusno ninka sidaa dadweynaha ula shaqeeya inaanu dhiirigelinayn markaa dadweynaha boqolkiiba boqol iminka si fiican bay noola shaqeeyaan waxaan aad iyo aad ugu adkaynayaa amniga qof waliba wuu baahan yahay annagana mas-uuliyaddiisu waana saarantay dadweynahana dowladdana wuu saarantay oo annagu aan wakiil uga nahay dadweynahana way saarantay waxaan ku dardaari lahaa inay booliska la shaqeeyaan oo xaafadaha wixii ka dhaca xaafadaa tandhiga u dhow markiiba dadweynuhu u sheegaan qofku waxaa laga yaabaa isagoo wixii arkay inaanu horu sheegin si aynu dembiga ula wada dagaalanno waa inuu dadweynuhu dembiilaha ama wixii dhacay markiiba saldhigga booliska u gudbiyaan aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa inay nala shaqeeyaan kalsooni na siiyaan iskaayo garab taagaan laakiin waxaan leeyahay ha ka sii kordhiyaan maxamed aadan saqadhi dabagale aad iyo aad baad umahadsantahay cabdisalaan hereri iyo tiimkiisa caawa waxaan idinku soo dhaweynayaa anigoo ah sarreeye guuto ibraahim cabdi xaaji maxamuud hoggaanka howlgelinta ciidanka booliiska waxaan idinku soo dhaweynayaa qeybta bariga hargeysa ama qeybta bariga gobolka maroodijeex ee booliiska waa halkanaa caawa joogtaan gobolka maroodijeex ama caasimadeenna hargeysa ka kooban tahay wuxuu u qeybsan yahay laba qaybood oo